السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا نقول تحنا كسر دوادا برنامج جارة وكديارني فنان عان هو كسر جدا قومية أحمر هذا كاسي وقيب كهذا قال كي مدوين قدام بيه كسر عدي جدا أجر رايا فنان كانوا لقوم بقعابو دبالة ملاكو أي حتى كسر كان عاصمة الدلك إثيوبيا وحاول كور بحنا يا وحي أسود شوقي حقب بدن وحساسية وعن هالكم كسر كوبيدون حتى با سيادو قبل قطو لصعو برنامج كان جارك وحاول فنان كوب بالله يا هذا الكيسة anigu waxaan qayb ka ahaa dagaalkii waxa socda waa arrin laga naxo oo laga murugoodo iyadoo shalay iyo maantaba waa nabad la leeyahay ayaan halkan soo gaadhnay waxaad moodaa inay jirto hab xeeladaysan iyo dabin la dhigay si ay iyagu si fudud oo istaraatiijiyadeed ugu guuleystaan waa la moodaa kaliya ma aha waa sida ay tahay waxaan aragnay oo aan u soo joognay militarigii ay ahayd inuu shacabka dalka ilaaliyo oo si xeeladaysan dib ugu guranaya waa wax laga xumaado anigu waxaan ahay axmaar aad baan uga xumahay xaaladda jirta walow aan wixii mustaqbalka dhici doona aan eegi doono haddana xaaladaha maanta aloosan waa kuwo laga xumaado waxaa jira way culus yihiin sida aan hadda uga hadlayno uma fududa wax kasta way isku huursan yihiin anigu goobo badan oo dagaal ayaan tagay waxaana ka mid ahaa qobiye waldiye xaaladda jirta marka aad eegto cid walba inay horay u socoto waxay ka doorbidaysaa inay dib u gurasho samayso dhanka militariga waxaad moodaa in gaabis ka jiro anigu ilaa 3 askari ayaan weydiiyey waxay leeyihiin howlgalyahanagii ayaana khayaamay iyo waan kala baahnay dhanka ciidanka gaarka markaan eegnana way yar yihiin haddii aan propagandada loo isticmaalayn way kooban yihiin qayb keelaayada ayay ilaalinayaan qayb meelo ayaa la iskaga dirayaa kuwa kalena waa la beegsaday qaarna waaba dhaawac maxay qaban karaan marka faana iyo maleeshiyada markaan u nimaadno waxaa la leeyahay way soo galeen balse si dhaba markaan u eegno wax soo galay dagaalka ma jiraan gaasha ayay soo galeen ayaa la yidhi laakiin ma joogaan maadaama run hadhow dadku ogaan doono ay tahay waa inaan sheegno kuwa inaga soo horjeeda ee na soo weeraraya waa dad sideenoo kale ah maysan awoodeen waxa socda waxaanse soo arkay in dawladdu si xeeladaysan wallo u wareejinayso dad ilaa 300 oo kun gaadhaya ayaa soo barakacay axmaarada caalamka kala duwan ku dhaqan waa inay si wada jira u howlgalaan Itoobiyaanimadkaygu haddii aysan iga baajin karin in axmaaranimadkayga laygu beegsado maba rabo maxay soo kordhinaysaa wariyaha waraysiga ka qaadaya ayaa wax ka weydiiyay maleeshiyada axmaarada oo muddooyinka u dambeeyay uu sheegay in la sheegay in dib u soo noqonayaan iyo wuxuu kaloo wax ka weydiiyay in uu dagaalka ka qayb galay fanaankani waxa uuna ku jawaabay sida tan hadda dhibaatada ugu weyn ee na haysata waa dhanka maamulka waxay qabanayaan ma aragno anigu runta un baan weligay sheegaa kana gaban mahayo dalka been laguma dhisi karo hadda shacabka been ayaa loo sheegayaa iyo propaganda haddii aysan taageero dawladeed ama isku halayn jirin ma qabsan karaan alamaada korom robit qoble haraan xamishtiin garaagar iyo gaashaan iyo weliba magaalada taariikhiga ee laalibeela ma jirto wadda ay ku qabsan karaan haddii aysan dawladda dhexe raalli ka ahayn innagu dagaalka gala ayaa la odhanayaa ugu horrayn waxa inaga qaldan taktikada dagaalka cid ku howlgelinaysa cid dagaalamaysa cid xagga dambe kaa jirta ma ogaan kartid markaad horey u ruqaansato ee aad meel qabsato amar unbaa soo bixi dib u soo baxa unbaa la dhihi amarkaasi meeluu ka soo baxayo ma garan karaysid cid kasta hadda way rajo dhigtay walow ciidanka gaarka iyo dhalinyaradu diyaarsan yihiin haddana dhankii maamulka ayaan ka liidanaa dhalinyarada qaar na hubeeya markay dhahaan ma arkaysid cid qaabilaysa markii aan dagaalka ku jirnay ciidanna dhaafay oo uu howlgalyaheenu noo sheegay inaysan cadow ahayn ayaa markii uuna dhaafay xagga dambe naga dhabar jabiyey kadib isgaarsiintii ciidanka ama reedyihii ayaa xumaaday xidhiirkii ciidamada wuxuu noqday mid liita intaas kadib waxaan ku qasbanaanay inaan dib u gurasho xeeladaysan samayno oo aan qaadano qorshahoodii iyagu weeraro culus ma soo qaadaan hadday 50 qof ku soo weerartamaan 2 ama 3 qof ayaa sniper iyo brem wata inta kale qoryo caadi ayay sitaan propagandada ayaa aad u sarreysa meel ayaa la oran way soo galeen kadib shacabkii ayaa yaaci oo guuri haddana dhanka kale ayaa la oran way ku soo socdaan haddana shacabkii ayaa qixi ma arkaysid cid maamul ah oo dejinaysa shacabkan waa kooxda TPLF sida uu hadalka u dhigay
maamulka magaalada Waldiya ayaa wanaagsan oo dadka dajinayay isaga dadka dajinayay maalintii dhaweyd markii ay bixi rabeen ee uu burburay gaaskii 32 toddobaadkii dhaweyd markii la dhahay maxaad u baxaysaan waxa loogu jawaabay waasha ayay soo marayaan annagu dhulka ma kala naqaano dhul dad kale leeyihiin maxaa naga galay difaaciisa ayay dhaheen xubnihii militarigu isaga ayaa Waldiya dajinayay oo shacabka dajinayay maayirka magaaladu oo lahaa waa dhulkeeniye xageen uga cararaynaa waxa kale oo isaguna jiray hogaamiye booliska kamid ah oo lagu magacaabo Fantown kaasoo qayb ka ahaa dadka dajinayay hogaamin wanaagsan markii la waayay waxay keentay in ciidankii kala shakiyo aaminaad la waayo haddana dhibkan haystay hadda dhibka ugu weyn ee haystay ma aha cudud ciidan waa hub la'aan shalay waxa la sheegay inay iska caabil la'aan galeen magaalada Lalibela taariikhiga akhyaarta wada nagala socota intaas waxaan ku soo koobaynaa barnaamijka gaarka aan ka diyaarinay fanaanka caanka axmaarada oo ka warbixinayay wixii uu goobjoog u ahaa iyo dagaalkii jiida raaya oo uu qayb ka ahaa muddooyinkii la soo dhaafay toddobaadyadii u dambeeyay inta barnaamij midkan la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo